danjiraha boqortooyada wadanka Sacuudiga oo fadhiya wadanka Kenya Ambassador Ali Usman oo hogaaminaya wafdi ay kamid yihiin isku dubaridaha hawlaha gargaarka ee dawladda Sacuudiga ay ugu tala gashay shacabka Soomaalida ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Hargeysa si ay ugu kurgalaan xaaladaha abaaraha ka jira Somaliland isla markaasina gargaarka bani'aadanimo ee ka yimid dawladda Sacuudiga ay ugu qaybiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen gobolada Somaliland wafdigu markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa waxa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda amuraha dibadda ee Somaliland ugu horeyntiina waxa warbaahinta la hadlay u qaybsanaha dawladda Sacuudigu kaalmooyinka ay ugu deeqayso shacabka Soomaalida sarkaalkaas oo lagu magacaabo Saad Muhanna Al-Suwayd الحقيقة اليوم أنا سعيد جدا بوصولي إلى أرض الصومال. سعد مهنا waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinkiisa Hargeysa Somaliland sidoo kale waxa uu sheegay in halkan uu yimaadeen hawl gargaar oo ay u soo xil saareen boqorka wadanka Sacuudigu oo ku saabsan in kaalmo la gaarsiiyo walaalahooda Soomaalida waxaana uu sheegay in mucaawirooyin kala duwan ay ka geysan doonaan gudaha Somaliland taasoo isugu jirta dhinaca cunnada caafimaadka iyo dhanka waxbarashada تقديم الغذاء أو سلة الغذاء أشقائنا وأهلنا في هرقيسة وفي بقية مناطق صوماليا لاند. سعد مهنا ayaa waxa uu sheegay in kaalmadaasi qaybinteeda ay maalmaha soo socda ka bilaabi doonaan gudaha Somaliland. إن شاء الله سوف نبدأ من غدا إن شاء الله بعملية التوزيع. sidoo kale mas'uulkani waxa uu sheegay in kaalmeynta shacabka tabaalaysan ee Soomaalida ay tahay waajib saaran dawladda boqortooyada Sacuudiga. شقيقي غذاؤك هدفي. ugu dambeyntiina waxa warbaahinta la hadlay saraakiil ka socotay wasaaradda amuraha dibadda ee Somaliland oo tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay safarka mas'uuliyiinta ka socday wadanka Sacuudiga runtii waxay ka turjumaysaa socdaalkooda iyagoo baahidii weyneed ee dhinaca abaaraha maanta ay taagan tahay dalka ka taagan ka soo ajiibay boqortooyada Sacuudiga boqor Salman bin Abdul Aziz iyo wasiirka arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudiga Al-Amir Naif iyagoo aad ugu mahadsan wafdiga ballaaran ay maanta noo soo direen si walaalahooda reer Somaliland ay tabaalaysan ay gacan uga fidin lahaayeen deeq aad u ballaaran raashin runtii ay dalka soo gaarsiiyeen dawladda Somaliland iyo shacabkeeduba waxaan halkan ugu jeedinaa mahadnaq aad u ballaaran Cabdi Shakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargeysa.